السلام عليكم دمان أصحاب تميل والباقي شوكتان بشرفي كرامكم نولادا مقال كري نوشير قري ورفوقي ميل فوق جارسي وليبا داقضها وقريدا كوي منافقين تها هورتا إلا حالي وحبرها بالشدة قلقلي حارقة أقباد أراكسن با قلقلي عدركيسين داد فربضان وكفل علي إسلام مركيبا داد كاسي وحيوغي هاللي سيابو كلا دوان قار حارقة مقريسا كو تاقير سنة iyo kuwa munaafaqnimo ka dhex raadinayay iyo kuwa ku tilmaamay inuu xorta xarigaasu uu qaladiya daba anaga maqaayadeedan idaacad ahaantaydan horta xarigaa waa cambaareynaya boqolkiiba boqol xarigaasi waa khaldanya in gabadha fanaanada caanka ah in la iska xidho iyadoo lagu soo wargelin iyadoo magaranaysa in loo sii sheegin in inta askar dusha lagaga soo daadiyo in xabsi dalaq la siiyo waliba jirdil loogu daro horta waa khaldan yahay xukuumadda Soomaaliland arrinka way ku khaldan tahay warkaasna inay war cad ka soo saarto way qof shacaba aan hubsidan oo aan dagaalamayn oo aan qorisidan in inta soo ciidana inta gurigeeda la dul keeno waliba jirdil loogu daro horta waan cambaareynaa arrinkaas taa markaan ka gudbo waxaan arkayay huwan fara badan oo inta xarigeeda ka falcelinaysa iyagoo munaafaqnimo ka dhex raadinaya halkaas iyo isku dir iyo inay saaq dhexdood u kala fataalaan iyagoo ka raadinaya ayaa waxay ku leeyihiin inantiinni baa saa loo geliya inantiinni baa la xidhxidhaya ubaad aragsan ciddii xidhatayna waa cid reer Somaliland cidda soo deyn doontaana waa cid reer Somaliland cidda jirdishayna waa cid reer Somaliland waa dadkii dhiigeeda lahaa ee horta cid kale maaha anta kale taa markaan ka gudbo marka la leeyahay Somaliland cadaalad ma taalo rag badan waxaan arkayay baraha bulshada ku soo qoraya Somaliland cadaalad kama jirto dadkii waa la iska xirxiraya sidan baa la sameynaya halkee cadaalad taala marka su'aashu isweydiinta la taasamada halkee bay cadaalad taala Soomaaliyadan aad iga hor dhaadhicinaysa aad hor wadwado waa meesha maalin walba ninka askariga ah uu ku dilayo ordo baasta iisooyib oo qof dhan oo nool uu ku dilayo cid ka hadashay ma aragteen baraha bulshada Somaliland baa qof lagu xiraya ama qof masaakiina oo magac baraha bulshada ku lahayn baa la xiraya maalinkaas qofkaas bulaalaya oo magac yeelanaya waayo meeshii la leecbaaba lagu xiray waa in farta marka lagu fiiqo oo munaafaqad laga dhex raadiyo marka dadka waxaan leeyahay qaar badan oo idinka dhexdiina baa hiil iyo hooba inay ka baahan kuwii macallimiintooda dilayay baan wali alaanka lagu hayn meel lagu sheegin kuwii dumarkooda gubayay baan meel lagu sheegin oo cid cadaalad u raadisay aan jirin ya kuwii shalay toole ninka askariga magaalada Muqdisho shalay ku dilay inanka yar ee lahaa baasta iisoo iibi ku dilay baan wali alanka meel lagu sheegay cid ka hadashay oo baraha bulshada joogta ama boonboonaysa arki maysi laakiin xariga Somaliland ka dhaca dhagaha iyo faraha iyo indhaha intaba tooshka lagu ifinaya waxa leeyahay maxaa loo xiray Muuse Bixi baa xiray baad aragsan cidda u xirantahay waa cid reer Somaliland cidda xiratayna waa reer Somaliland cidda soo deyn doontana horta waa reer Somaliland taa horta taasaan in kala yahay taa markaan ka gudbo rag waxaa jooga hadaba baraha bulshada u fadhiya dadka inay xariga iyagu u qalqaaliyaan waliba raggaas qurbahay joogaan inta badan qofkii oo looba jeedin oo magaranaysaay cidba aanay arkayn ayaa waxa loo qalqaalinaya oo loo boonboonanaya qofkaas sidoo lagu xidhay lahaa ubaad aragsan saan ognahay waxay tagtay Puntland la saacad bay tagtay meelo badan bay soo martay oo Soomaalida kamida maalinka airport ka soo degtay cid uu taabatay ma jirin wiska ganacsanaysay magaaladeedii ku ganacsanaysay wadaarkiisa showgeedii sidoo ugu dhacay inta soo dhan maxaa loo xidhay way hadaba su'aasha isweydiinta leh taas amudan inta soo dhan maxaa horta xarig loogu xidhay way sababta inii sheegaya sababtu wax kala ma aha gabadha cilmi arkin danaheedii iyo hawsheedii shaqadeedii iska wadatay xukuumadda Somaliland tani heela kamaysan lahayn laakiin rag baraha bulshada jooga gaar ahaan qurbaha jooga baa inanta horta xariga u qalqaaliyay in la xidho oo meel walba shacabkii xabadka u garaacay yaa wax ku sameyn kara hadii la xidho cid wax ku sameyn karta ma jirto qofku markuu sidaa u hadlo taa macnaheedu ma aha in qofku isagu ku hiilinayo ee aduu farta kugu fiiqaya sidii wax lagu sameyn lahaa sidoo dabeetana u heli lahaa munaafaqad uu halka uga dhex raadiyo oo uu dabeetana isku diro isaaqa dhexdiisa ayaa maalin kasta waxaad arkaysaa qof aan la xidhinba oo magaaladiisa iska jooga in dabeetana la dhaho yaa xidhi karo yaa taaban kara
maalinka qof la xidho reeraha kale ah xukuumadda Somaliland waa khaldanta cadaalad ma jirto maalinka la xidho qof ay madaxweynaha isku reer yihiinna waxaa leeyahay waxaa lagu hoos qarinaya lagu dambabasaya qof reer kale oo la xidhay war ummadan balse bal ummadan xagee loo qaadaya bal xagee loogu hagaagaya ilig baan ogeyn shalay markii la xidhayay maxaad tirahdeen intaad baraha bulshada soo fadhiistaan xabadka aad garaacday waxaad tirahdeen xadhig cabdimaalig baa lagu hoos qarinaya saa darteed baa ilig loo xidhay wariye ilig waa dad yacni munaafaqad inay ka shaqeeyaan mooyaane wax kaloo ay isugu biyo shubteen ma jirto marka waxaan leeyahay huwanay iyo huwan kalkaalay meeshan Somaliland baa adeer la dhahaa weliba Afrika la dhahaa cadaaladna waxa weeye Afrika waa ogtiin heerka loo meesha ka marayso meel cadaalad ka jirto horta ma jirto cidii cadaalad doonaysay cadaalad ilaahay agtiisa taala iyo maanta dhimato ma fahanteen hadda nin salaamaya muuqaalkana sii sheer garay